gudoomiyaha hay'adda dhowrsatada Somaliland mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo maanka ku haya muhiimadda ay qaranka Somaliland u leedahay helitaanka dhisme ay leedahay hay'adda dhowrsatada Somaliland oo hadda ku jirta dhisme ku meel gaar ah ayaa waxa uu soo kormeeray dhismaha cusub ee hay'addaasi ku yeelan doonta magaalada Hargeysa oo noqon doona xarunta guud ee hay'addaasi. dhismaha cusub ee hay'adda oo gabagabo ku dhow waxa uu mid u dul istaagay qaybaha kala duwan ee dhismahaas ka kooban yahay isagoo warbixino ka dhageystay injineerada iyo khubarada gacanta ku haysta dhismaha hay'adda dhowrsatada Somaliland. kormeerkiisa waxa ku wehelinayay agaasimaha waaxda qorsheynta ee hay'adda dhowrsatada Somaliland Sacad Haadi, agaasimaha waaxda baarista ee hay'adda Maxamed Yuusuf iyo agaasimaha maamulka lacagta ee hay'adda dhowrsatada Somaliland Cabdirasaaq Maxamed. markuu kormeerkiisa soo idlaystay isla markaasina soo indheeyay qaybaha kala duwan ee ka kooban yahay dhismahani hay'adda dhowrsatada Somaliland ay yeelanayso ee xukuumadda Somaliland ee go'doonka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay maalgelisay ayaa warbaahinta waxa uu faahfaahin ka siiyay kormeerkiisan. waxa maanta farxad noo ah inaanu taagannahay xaruntii guud ee hay'adda dhowrsatada dhismahan ama xaruntan oo ah xaruntii guud ee ugu horeysay ee qaranku uu dhiso hay'adan ayaanu dul taagannahay oo kormeer aanu ku soo marnay. dhismahan xarunta hay'adda tayada wuxuu socday muddo 5 bilood ah iyadoo oo khaasatan uu jiro badxirankan iyo COVID-19 haddana dhismuhu si fiican buu socday. wuxuu ka kooban yahay dhammaan xafiisyadii hay'addu ay ku shaqayn lahayd ee qaranka ugu shaqayn lahayd howlkii shirarka muxuu ahaa iyo qaybihiisa kala duwan. waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu kaga maaranno baahida aanu qabno xarun guud. waxaan kaloo halkan ka rajaynaynaa insha Allah mini lab oo arrimaha ama shayga degdega lagu baari karo in isagana halkan nooga hirgasho hadii ay ka dhigo. kormeerkayga wuxuu daaran yahay maadaama dhismihii dhawaad uu ku jiro inaanu halkan ka warhayno inaanu qorsheyno qaabkii aanu dhismahan insha Allah aanu ugu soo guuri lahayn iyo inaanu diyaarino insha Allah in dhawaan marka dhismuhu noo dhamaado madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xariga nooga jaro. si kastaba ahaatee dhismahani ma aha kii koobaad ee hay'adda dhowrsatada Somaliland ay hirgeliso muddadii uu majaraha hay'addaasi u hayay gudoomiyenimo Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo fulinaya siyaasadda madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, balse dhismahan waxa uu noqonayaa mid ka mid ah dhismayaasha ay hay'addu muddadaasi dhistay iyadoo hay'adda dhowrsatada Somaliland markii ugu horeysay ay gacanta lagu hayo dhismaha laabka ugu ballaarnaa ee qaranka Somaliland uu yeesho oo laga hirgelinayo magaalo xeebeedka Berbera. Luqmaan Maxamed Faarax, Bulsho TV, Hargeysa.